gudoomiyaha ururka Saabo ee ilaalinta xayawaanka Mahad Faarax Cabdilaahi oo maanta la hadlay telefishinka Ariel ayaa waxa uu markii ugu horeysay iftiimiyay gudoomiyuhu xaalufin iyo dhoofin lagu hayo xayawaanka xamaaratada waxaana uu sheegay in wasaaradda deegaanka ee Somaliland gaar ahaan wasiirku intii ay joogtay wasaaradda ay dalka ka dhoofisay xayawaano tiro badan isla markaana ay imika ku hawlan tahay xayawaano kale waa sida uu hadalkiisa u dhigay gudoomiye Mahad Faarax Cabdilaahi waxa uu fariin u diray hay'adaha garsoorka iyo sidoo kale cid kasta wax ka qaban karta dhoofinta lagu hayo xayawaanka waxa dalka ka jira Somaliland oo ku soo kordhay duurjoogtii dalka ku dhaqaneed ayaa weerar baan lagu soo qaaday waxa weey dalka in la xaalufiyo ayaa la doonayaa dadka wadanka xaalufinaya waxa koow ka ah wasaaradda deegaanka Somaliland oo hareemcadadii loo dhiibay dalka ka saarayso dhoofinaysa waxa kale oo wasaaraddu ruqsad ku bixisaa xayawaanka loo yaqaan xamaaratada oo ka mid yahay maska diinka yar caasha barida iyo qulka iyo waliba raha waxa weeye wasaaraddu waxay ruqsad u soo siisaa qolo ka socota Czech Republic oo ay tiraahdaa waxay ku sameeyaan daraasad sidaasna dalka kaga dhoofisaa waxa kale oo wasaaraddu ay ruqsad ku bixisaa shimbiraha dalka ku dhaqan taasna waa taa waxa kale oo duurjoogta dalka ka dhoofiya ina waran cadan ninka loo yaqaano oo aad ogeedeen libaaxiyadii uu geeyay Djibouti sidoo kale ina waran cadde waxa weeye carabta ayuu la shaqeystaa oo duurjoogta ka iibiya waxaanay siiyeen gawaadhi fara badan oo duurjoogta dalka siistay waxa jiro kale qolo kale caraba oo ninka la buurmada uu soo kaxiyo oo geeyay waqooyiga ceel afweyn waxa weeye carabtana shaqadeeda waynu naqaanaa markay arrintu caynka tahay madaxweynaha Somaliland waxaan ugu baaqay oo aan leeyahay madaxweyne duurjoogta iyo dadka iyo dalkaba adaa madaxweyne u ah waxa weeye wasaaraddaadii deegaanku waxaan ku waxyaabaha ay wado waxaan ku leenahay wax ka qabo sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay mid ka mid ah shaqaalihiisa oo hore wasiirka deegaanka Somaliland ay u xidhay Cabdilaahi Saashaadi weysay xariga Cabdi Calgadle wasaaradda deegaanka la kacday wuxuu buu lahaa Cabdi Calgadle wasiirka deegaanka wuxuu ku lahaa in xayawaanka ay mushaharka ku qaadano cashuurta ummadda laga soo ururiyayna ku qaadano la yiri ilaaliya wuxuu buu lahaa aynu ilaalinayeen ka ganacsanay marka waxa weeye Cabdi Calgadle markuu 3 shahidna ayaa la sii daayay iminka Hargeysa uu joogaa oo xorriyadiisii uu helay Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi telefishinka caalamiga Ariel magaalada Burco.